noloshu guul qura maaha. ilaahay wuxuu leeyahay quraanka wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas waa maalmo dunidu waana isugu keen warwareejinaya. guusha waxba laga bartaa oo jabka waxba laga bartaa waa daris nolosha kamid ah. haddun baa arkaysaa war taariikhda dunida dib uga hore way qofku maaha inuu instantaneous nolosha marka la qiimeeyo haddun lama eego. hadda waxa suurtagal ah inuu gaalku ka xoog badan yahay ka tiro badan yahay laakiin nolosha waligeed saan ahaan mayso. saadaradeed nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam war nolosha bal dib u eega. ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa alaysa allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadina min duni wa man yudlil illahu fama lahu min had. alaysa allahu bikafin 'abda war ilaahay miyaanu ku fillayn ba alla leeyahay adoomihiisa miyaanu ilaalin karin. war adduunka waxaan ilaahay rabay kama dhaco waxaan alla idmini ma dhacaan. nin xoog weeye nin xoog yaritoona ma jiro laakiin inaga la inay taxaamaya ilaahay waa awoodi kariya diintiisa inuu gargaaro biduna ay shay kun fayakun ba awoodisa wa idha arada shay'an yaqulu lahu hadu wax doonaya ilaahay wuxuu yiraahdaa kun fayakun wa hanaya. laakiin waxa culimadu yiraahdaan inaga ku jirna mawduuc imtixaan. idan adiga laga rabaa mushkilad kasto ka hortimaada imtixaanka ma ku guuleysanaysaa mise waad ku dhacaysaa. adaa laga rabaa mas'ala kasta ma sax baad uga jawaabtay mise qalad baad uga jawaabtay. adaa laga rabaa mashaakilka soo baxay oo dhan inaad si sax uga jawaabtid. saadaradeed ayu rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ina leeyahay wala tahinu warham murugoonina ha liidanina ولا تحزنوا هم مرغوننا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قفك مؤمن كي مرنبا معها قف بالدريمة. وهي النبي عليه الصلاة والسلام حلي عجبا لأمر المؤمن. أرنك قفك مؤمن كأياب له إن أمره كله له خير. وحك استوصى بيا خير بيطهب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيه النبي يقول لي هدي النعمة نقطنا وصبري وكما هدي علينا شكر. هدي النقطة بو النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام نباتنا وصبريا لما قربنا خير مهليا بو النبي يقول لي عليه السلام. قفك مؤمن كي مركا إلهي ما أود وينا أضالغو اتحاميا وهي إلهي محكوة المامية قوة كلا. إلهي يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كو إلهي عيد أنا هين هيل يا قرابة نمية تلي قرقار كالضوني با إلهي دي تساله دي مهما هدود وحويان كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وعاردي قري لستوك لبالي قري عارة محو عليا قري عارة وحبا إلهي غير كيات كتير سطو أما مريكا كشاق أما متكلا كشاق وقري عارة قري عارة كتير سنبات إلهي وحولي عيد أنا قايدين عمرته إلهي غير كيستر هذا عزي حوق يكدورة تمر كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت البيت العنكبوت بإلهي قري وحاول لي توج العسن قري عاربة لله سبحانه وتعالى. قفك مؤمن كهرت وإنه الرميسي الله سبحانه وتعالى هو القوي بيده الملك وهو على كل شيء قدير له ما في السماوات وما في الأرض. إنه الله سبحانه وتعالى الدنيا الحكم والكروان ترميسها إيمانك كم يدحي إن أتقرطه دنيا الثاني إن أنه إلهي موجنين ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين بإلهي ورمن موجني بألا سبحانه وتعالى وحنا نبوري قفك مؤمن كي مركا وين الرميسية إن أنه hadduu alla ku tiirsado inaanu marnaba dhabi soo gaarin. saadaradeed buu nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam markay ugu adkeyd wuxuu leeyahay la tahzan inna allaha ma'ana hamrugon buu yiri ilaahay baa maceena فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلهي بحسلوني كسود دجيبا لله سبحانه وتعالى وأيده بجنود لم تروها با إلهي عندما يدنك أيضا أركين با إلهي
ilaa iyo xadarmood inta u dhaxaysa isagoo aan ilaahay mooyaane cid kale ka baqayaa jirin. riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan waa di'ba calaa qanam iyaynu ayayga adhigiisa ka ceshada un mooyaane. laakiin nabigu muxuu yidhi walaakinakum tastacjiluun, waa degdegaysaan. sabirku waa cibaadatu daraa wa ciddati lmuslim xiina nuzuuli lbalaa, waa cibaadada qofka muslimkaa laga rabaa inuu barto marka dhibtu jirto. sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'a yafraxuu biha wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a ina allaha bima yacmaluuna muxiit. ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala, war haddii wanaag idin haleelo, munaafiqiya gaala way ka xumaanayaan wanaagga idin haleelay. haddii xuma idinku dhacaanna waa ku farxayaan baa ilaahay yidhi. laakiin ilaahay muxuu ina leeyahy wain tasbiruu watattaquu, haddaad sabirtaan sabirkii loo baahnaa adkaysataan, laba alla kacabsigii loo baahnaa wixii waajibaad ee lagaa raba inaad samayso aad samaysaan, laa yadurukum kayduhum shay'a baa ilahay yidhi. waxay xadhig mareegayaan oo dhammi waxba idin yeeli maayaan. taa macnaheed waxa weyaan qof aan wax qaban karini ma jiro. laakiin waxaa soo ururtay dadkaan camaliyiin ahayn. idan qof salbii ma jiro, qof aan wax tarini bini aadamka ma jiro. argagaxuna waxba ma bedelo. intaad meel iska fadhiisatana maxaynu samaynaa muslimkii dee jabiyo wakaasoo dhib baa soo gaadha ama waddankii la qabsay ama halka la qabsado meel waxba ma tarto. waxa wax tara qofka muslimkii markuu noqdo qof camaliya, qof iijaabiya, qof nolosha wax ku soo kordhinaya. idan waxaa lagaa rabaa kow inaad ilaahay rumayso, sabirtid, kalsooni ku qabtid, mabaadi'daada ku sugnaatid. khaamisan waxaa lagaa rabaa inaad qof camaliya noqoto, qof shaqaynaya inaad noqoto. haddii qof waliba intuu awoodo uu qabanayo, beri hore wax waliba dhammaan lahay. awalan ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. war dunidu hadda ma bilaabmin baa ilaahay leeyahy. idinka hortiin taariikh baa jirta dunida soo jireena ee bal dadkii hore kibrey ama alla beeniye ama bal meesha ku dambeeyeen eega. dunidu maaha wax hadda bilaabmay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. idan taariikhdu waa tajaaribtii ama waa waayaragnimadii bini aadamkaee dhabta ahayd oo u baahan qofku inuu si fiican intuu u daraaseeyo wax badan lagala soo baxo oo wax badan laga faa'iidaysto. kadib baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa bacda aaya walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum muminiin. muslimiintii jabtay ee caynkaas ku dhacday ayaa ilaahay wuxuu yidhi walaa tahinuu, ha daciifina, ha liidanina, liidnimaya idinku dhici. walaa taxzanuu, ha murugoonnina oo murugaya idinku dhicin. wa antum laclawna in kuntum muminiin, idinka koreeya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaad tihiin muminiin baa la yidhi. aduu waxaad qiyaastaa iminka haddii dowlad inta dagaal lagu qaado ilaa la yidhaahdo madaxweynihii wuu dhintay, maxaad u malaynaysaa? dagaalkii lasla galay askar lagama warramayo janano iyo meelaha ma joogte madaxweynihii baa la dilay haddii la yidhaahdo waddanka sidii dagaalka loogu waday. yani waxaa la dareemaya inaan waxba ka soo hadhin. xad bay muslimiintu joogeen lagu dhawaaqo la yidhahdo xataa nabi maxamed baa la dilay, warka ay uu soo baxo. ilaahi subxaana wa tacaala waa ka u tilmaamaya markaa balaayooyinku in daraaso laga qaato. wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi allahu shaakiriin. ilahay wuxuu leeyahy wamaa muxamed, war nabi muxamed ma aha rasuul rasuuladii ka hortii ay rasuulla tageen mooyaane. ee haddii la dilo ama uu dhinto, miday doontaba ha u dhacdee, madiintaa ka noqonaysaan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. yani waxaa ilaahay tilmaamaya xataa nebiga ugu weyne hadduu dhinto islaamku inuu jirayo. qofka muslimkii markaa maaha qof ashkhaas ku xidhan. aw hebel haddii la dilo inay dunidu kula madoobaato, ama madaxweyne hebel haddii la dilo inay dunidu kula madoobaato, ama ma aha. qofka muslimka waxaa la barayaa mabaadi inuu ku xidhan yahay, rabbina uu ku xidhan yahay subxaana wa tacaala. idan aanu jabin. saa awgeed ayaa ilaahay wuxuu mu'miniinta barayaa laleeyahy war xataa nabi maxamed haddii la dilo ama se uu dhinto miyaad dib u noqonaysaan baa ilaahay leeyahy.
هذا ضمن النقطان فلا يضر الله شيء إلهي هذا وحبا ما يدي يلين بالله سبحانه وتعالى قفك مؤمنك دبي سو غاري كرتا لكن waxa laga rabaa koow الثبات على المبادئ dadku inay mabaadi'dooda iyo diintooda iyo caqiidadooda haystaan laba qadarka in lagu sabro saddex الثقة بالله إلهي سبحانه وتعالى إن كلسوني لغو قبو أفر واحد بهانتي تجاربتا نولولاد إن الدراسي سوء نبي عليه الصلاة والسلام ومكا جوغا وصحابتي سيل اللينا يولا ديبا يبو نحجوغ وحو نحجوغي نبي عليه الصلاة والسلام يضع أبي بكر انت الله طومه عدعيد الله ديغو لغا حلابتا لغا سارو si kasta marka loo cadaabo torture loo dhameeyo ayaa inta xarig yar lagu xidho ayaa yareerka loo dhiibi jiro meelaha la warwareegi jireen waa nin muslima oo xarig ku xidhan yahay oo torture ku socdo oo meelaha la warwareegiyo nin ku joogo waa arkaya maanta may bilaabmin iyadoo muslimiintu waa joogaan inuu daciifo ama la dad la laayo ama xabsi la gala ama la iscadaadiyo ama la istumo haddun baa arkaysaa war taariikhda dunida dib uga hore way qofku ma aha inuu instantaneous nolosha marka la qiimeeyo haddun lama eego hadda waxa suurtagal ah inuu gaalku ka xoog badan yahay ka tiro badan yahay laakiin nolosha waligeed saan ahaan mayso saadaradeed nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam war nolosha bal dib u eega المسألة إذن شيء مركا كوات سينو الدين تطبيعات إذا وفهنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي مشكلة قبضة طي نبتو هيستي أيها بينها نمد كم إذا ألا الدلمية مكة لقى قاضي براق بهالله إذا هذا الله صاري تبتنا وحل لقي بيت المقدس مكية بيت المقدس انتيسو شرا intaasoo kilomitir bay soo jiraan ilaa intuu Makka ka qaaday ayuu Bayt al-Maqdis geeyay Bayt al-Maqdis as-Sakhra meesha la yiraahdo inta dhagaxa la geeyay hadana halka laga dhoofiyay dabeetana fawqa 7 samaawaat la qabatiyay cirka loo bixiyay قرآن إلهي وحلي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آية حمك قال انت هشيسه waxay tiri waa dileynaa go'aana baa la qaatay qabaa'ilkaanu qaybino 10 inaan la soo saaro waa kaasi dabatana saftaha lagu wada kulmiyo reer bani haashim dhiiga cid ay u raacaan markay garan waayaan carab oo dhan laba dagaalami karaan waxa magtooda ay aqbali doonaan deysna hayna dhaafo magtana la qaato ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu faray inuu hijroodo نبي محمد وحي أودي أما أود بني آدم وحي هاي ودم بيسوقي سقي أبي بكر لبا نيف والله فولبا يسي ميل سي داجستين ودكتين من قالة أي كريستين
oo dhul mareena oo wadooyinka kala yaqaana cunay xidhxidheen safarkaasi ay ku sii geli karaan goor aan dadku soconin si aan loo arag buu ka baxay guryihii si ay u raad gataan buur bay fuuleen oo hadaad saxaara lugayso dee raadkaaga markiiba waa la helayaa meeshaad ka baxday may u bixinba xaggii saxaaree buuraleyda ay u baxeen koonfura iyadoo madiine ay waqooyi xigtay xaggii waqooyi may qabana koonfur bay qabteen si raadraaco xaggaa markuu ka doono aan hore loogu helinay iyana xaggan u socdaan si aan loo raadin karin calaykum assalaam waraxma ayay buuraley galeen si ay u dhuuman karaan buu 3 habeen oo isku xiga god ku jireen godkaasay gaaladu intaysa soo dul taagtay ayaa abubakar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii ina arkay ما ظنك باثنين الله ثالثهما ابو نبي ومحاض ما نسال الله الا كسدحي لا تحزن هم رغون الهي بين لجري لبا الله ومعود يمل ما قول درستاني هم رغوني ودكي باي كبخين dhexda markay marayeen ayaa warka carabi markii ay weyday ay waxay ballan qaaday ninkii xayyan aw mayita madaxa nabi maxamed iyo abubakar cidii keenta boqol halaado geel casaasayn madax kasta laga siinayo arabtii dagaalyahanada ahayd ee kaymahoodii aymahooda iska joogtaa warkii soo gaadhay waa ka tilmaamaya saxaabigii la odhan jiray ahadu saxaaba kamida al-ashja'i ninkii ahaa Suraqah ibn Malik al-Ashja'i wuxuu leeyahay anigoo naadigii reerkayga halkii lagu shiri jiray anigoo fadhiya ayaa mid soo galay buu yidhi markaas wuxuu yidhi halkaa 2 nin baa sii socday oo aan u malaynayo ma urah illa Muhammad iyo saaxiibkiina yiin mooyana cid kale u malayn maayo markaasaan idhi buu yidhi war waxba ma aragay war waa hebel iyo hebel waxba ma aragay iska fadhiso waxaan islahaa buu yidhi dhiigooda yar cid kula qaybsanayna 200 halaad kaliya heshidee tara jaariyad buu hoosta ka diray wuxuu yidhi faraskii iyo warmihii soo qabo faraskii baa loo qabtay warankii wuxuu yidhi markaan iyaga ka baxay gurigii tagay waxaan sidii buu yidhi waranka haddaad qaadato cadceeddu markay ku dhacdo walacwalaacdiisa meelaha laga arkiyo ciidda inta neefka u geliyaan jiiday buu leeyahay waxaasoo dhan wuxuu samaynayaa dhiigooda ayaan cidi kula qaybsanin aad adigu qaadatid xoolaaye waa kii ilaahay dhulka la gooyey faraskiisii ee suurtoobi weyday nabi maxamed siiba ku nabadgalay mas'ala waaxida baan markaan rabaa inaan tusiyo nabi maxamed wax 500 kiiloomitir ka yar dhowr iyo 10 maalmood buu socday makiya madiina inta u dhaxaysa dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayay oo godgalayay oo haraadayay oo lugeynayay oo soconayay oo la eryanayay oo u baqayay mar kalena habeen qura ilaahay intuu dhoofiyay maka inta laga dhoofiyay la geeyay maxay بيت المقدس لقى دhoofiyay xagee la qabadsiyay samada la qabadsiyay maxaa ku jira marka ilaahay ma awoodi karin markaan gaaladu ay rabshada waday inta maka laga boodo in la yiraahdo madiina fariiso maxaa bay ku daba socon waxay dhahdaan tahore waa maxallu tashriif linuriyahu min ayatina al-kubra wala sharfa nabi maxamed inuu aayaadka alla soo arko ilaahay ba xoogiisa wax ka tusay tanina waa tashriic baa la leeyahay waa waxa layna rabo inaynu ku dayano innaga layna taxabay ilaahay awoodu ma waayin ilaahay dadkan kan wuxuu oran lahaa gaalo dhamay dhimo oo dhimo lahaay ama qasab ku islaam oo islaam lahaay وهو على كل شيء قدير بيده الملك أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بكاف عبده إلهي قرآن كم حكوت المامي ولا إلهي ميان وحول بأودين ميان قعنتي سوح ولا بكتشرين ميان وحول بصماي كرن طبعا وحول بصماي كرن إمسا قوم با إلهي دول كاللقوي إلهي قرآن كم حكوت المامي يقارو كارو قادو دول كإنت للقوي هدنا إنت يسوى سعودين ورمو دقحان لغو قراعي نارتا لغا كياني دبتنا دول كاللغو أبوري قوم
كسيلي تاو بابا أما قادا أما هقردامي أما يسوق تقع وضعف حكيني صحابتي وين ربيسان كرواينا waxay dhahay miyaanu yarnay meema yaridin buu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam walakinakum ghusaa'un ka ghusaa'i sayl buu nabigu yiri laakiin waxaa tihiin daad xoorta daadku qaado oo kale ma yaridine daad xoorta waxa la yiraahdaa xashiishka iyo xubada iyo waxa markuu daadku meel jabsaday oo wado xoorkan iyo xashiishkan iyo uska gan saaran uska gani meel laguma socdo meeshu iska yaalay wuxuu qabtaa halka daadku qabadsiiyo dad itijaah lamatiin meel uma socotaan xagga caalamku isaga socdaa uma idana u socotaan daad xoortu halba meel bay ka laabataa meeshu ka laabtaba uu kala laabanaya shakli male form loo yaqaan male wadada haday soo dhuubato xoorku isku soo urura meel buu imanaya haduu daadku kala balaadho uu kala baahaya shakli male wazni male ميزان ماله او وحي ميزان لو دغا دولكو تغا كون حاجه سري اورديان داد خورت حاجه سري عررتا اذا كانما نبي محمد عليه الصلاه والسلام tilmaamiyo ahdi inay iman doonto dadka muslimiinta iyagoo tiro badan leh ay noqon doonaan dadaan qiimo lahayn wasni lahayn afkaar lahayn mabaadi haysan waxba haysan kalbabqa dunidu waxay ku dhawaaqdaan kaga daba dhawaaqa xaqii loo dhaqaaqay isaga daba socda qiimo wasniyo caalamiyan aanay ku lahaynba hadday wax sheegaan iyo hadday shiraan iyo hadday aanu midnaba macno samaynaynin su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waa maxay sababtu markaasuu nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam wala yanzi'anna allahu min suduri aduwikum almahabata minkum muslimka dhabta waa laga cabsan jiray waayo waxa loo yaqaanay inay yihiin dad tooda ku adag saa daraadeed bini aadamku hadduu ku og yahay qof wax iska rabi kara ama wax iska waabin kara ama mabda leh hadaa tahay warka lagu loo imanaya war macquul weeyaan oo qof lagu xisaabtamay laakiin haddii lagu og yahay inaad waxba tahay war ama ciidama ku sheegmayso waa lagu wadayaa ama wixii la doonaa laga yeelaya ولذلك النبي وحي ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم إلهي وحو قال قلبيده ما كسار دونا بقى إذن كان بقيا mar haddii idinka la soo hadal qaadada lagu durduriyo cidi kama baqaysa buu leeyahay baqahu wuu haray haye wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn idinkana qalbiyadiina wahni baa dagi doona buu nabigu ku yiri wahnigu luqada carabiga wahni xanuun bay u yaqaaneen garabka ku dhaco waa loo yaqaanay وهني waxa kale loo yaqaan ducfiga nimankan luqada carabeed way yaqaanaan carab hay laakiin waxay garan kar waayeen waxaan intuu dadka ku dhaco wahni leeyay dadku ba uu saawna sakhbaya maxay yihiin tabatana waxay ilaahay ya rasuulallah wama alwahn farabi wahni wala garanayaa laakiin wahnigan dadka ku dhici doona muxuu yahay qala hubb ad-dunya wa karahiyat al-maut nawi alayhi waxa idin ku dhacay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam adduunyo jacayl iyo aakhira nacayb ama geeri nacayb nabigu wuxuu ku sheegay xanuunka rasmiga ee qofka dadka mu'miniinta Allah hari doona inuu yahay misaladatan adduunyo jacayl xubbu dunya ay qofka mu'minka adduunka iyo aakhiro mu'minka sax aakhira la way أعماش الدنيا أعماش آخرة وحريسية أعماش آخرة وحول بوح حقوقي يا آخرة ما حيك جوينيسة جنة جويسة بالنار بيجويسة وقف أركت النار ومال بدل كفكرية أما كوحدا وحكون عدون تبي النبي يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ضايع على عضان وسكون نبان يجري ضاد عاطف يجري واحد من عيسى آخرة وحكى كهري الدنيا دي اللي جمدر كل بدأ بليون واسكو بسنة سنة بنا هذا اللي حدا بليون الدنيا تكوكرنا الله وإذا نحمريا أحد شرتين النبي عليه الصلاة والسلام مساجد كيسي قبل باطمي قفت مرة وأنا وحبه السنة مساجد القديسة خيمة دي الله قدسة طول يربع هلكا سقال الله قدسة مساجد النبي عليه الصلاة والسلام هلكا سيدة جنيد dabeetayna waxay ka fikirtay in islaamka wax u qabato qof muslim oo caatilo meel iska fadhiya ma jirin in islaamka iyana wax tarto waxay qaadatay fikradda ah iyaduna inay qaadato aragtida ah inay ugu yaraan masaajidka nadaafadiisa iyana inay ku guulaysato markaa iyana masaajidka nadiifin jirtay masaajidka nabiga kaleey salaatu wasalaam
waxaa aragtay shaqada qaban kartaa inuu yahay masaajidka nadaafadiisa inay ka adkaato habeenkii dambe goor habeena wadkii uu yimi way dhimatay saxaabadii waa la qaaday waa la maydhay waa la kanfay waa la kaxeeyey xabaalaha la geeyey waa la soo aasay khalaas subaxii dambe ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii buu waayey markaasuu yidhi war maadayeen qoftii dumar ee masaajidka deganeed sana ilaahay rasuulkiisii xalayta ay dhimato waxaanu isri nabiga